مشرح مدحوينimada xisbiga udub mudane Jamaal Cali Xuseen ayaa maanta waxa uu soo gaaray gudaha magaalada Boorama waxaana safarkiisan ku weheliyay mas'uuliyiin kala duwan markii uu soo gaaray gudaha magaalada Boorama ayuu ugu horeen waxa uu saxaafadda ugu waramay mudane Jamaal Cali Xuseen ujeedada socdaalkiisa maanta ee magaalada Boorama safarka aan ku yimid Boorama waxa weeyaan safar khaas ah waa safar ki xisbiga ujeedada ama walaha سفر خاصة ونقول من أرض الجامعة عمود دليرة مسكح مال جروب ريدرز كلاب كان يسمى مجال بورما قبل كعوضة يعني قوي مدينة الله كرمه سعادين تا يهندا يبشرها waxa kale uu sheegay mudane Jamaal Cali Xuseen inuu caawa ka qayb gali doono bandhiga akhriska ee maskaxmaal ee ka qabsoomaya caawa gudaha magaalada Boorama ma ahan markii siyaasadda soo galay inaan bilaabay waxaan ber hore ayaan bilaabay dhalinyarada la hadlo oo jaamacadaha tago aqoon isweydaarsi la sameeyo xiriirkii tii hore ee socotay ayuunbaa sii soconaysa taas macnaheedu waxa weeyaan mar haddaan siyaasadda galay laftirkeeda ka baxan ma aha roolkii hore وهي أنا مدة وهي أهاي عند اليارده لاحظوا قول سويدار سلا سمايو محي هذي تنوع عن كذا فايدة سنية كذا مسك حمال قول كان ريد ريسك لابكا ويجوا بالولبا صوبان ديجا بوك يعني بوك الكوباية كان تاي دفتر كي بيشل sidoo kale mas'uuliyiinta bandhigan maskaxmaal ayaa waxa ay ka warameen muhiimadda ay u leedahay inuu caawo bandhigooda ka soo qayb galo qoraaga weyn ahna musharaxa madaxweynimo ee xisbiga udub mudane Jamaal Cali Xuseen bandhiga dowladda oo soo qoray ee ahaa diiwaanka qosolka aad baan soo dhaweynaa waxaan leenahay wad soo maamusay maskaxmaal wala soo sharaftay annagana tawqiifkii caadi iyo waqtiga loo qaban jirnay oo baasidiisu noogu socdo maskaxmaal waxa la aasaasay 2018 sababta waa asaasayna waxay tahay maadaama Soomaaliland oo dhan amba adduunka dhan waxbarashada ay tahay shayga ugu muhiimsan qoraalka iyo waliba akhrisku in lagu dhiirigeliyo ardayda jaamacadaha ardayda secondaryada iyo qof kasto la muhiimad naftiisa ku jirto taalo Ilaahay ku abuuray amba akhris noqoto amba qoraal noqoto amba noqoto sida ummadda wax looga dhigin Cabdi Fataax Ahmed had wanaag news magaalada Boorama